Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada channelka Romani Media. Magaciiguna waa Cabbaas Mustaf. Waxaan maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa warbixin ku saabsan maskaxda bini'aadanka. Intaanan muuqaalka u gudagelinna, like saar fiidiyogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-keena dad badan gaarsiiyo. haddii maskaxdu aadamuhu ay kombiyuutar ahaan lahayd waxay fuli kari lahayd 38,000 oo trilyan oo howlgal halkii ilbiriqsiba. Kombiyuutarka ugu awoodda badan dunida ee loo yaqaano Blue Gene wuxuu maamuli karaa 0.002% xogtaas. Maskaxda aadamuhu 2% ayay ka tahay jirka bini'aadanka. Culeysku waa 1 kilobar. Waxay ka kooban tahay 100 bilyan oo dareemayaal ah. sidoo kale samaysankeeda guud 75% waa biyo. sanadka koowaad ilmaha maskaxdiisu 3 jeer intay ahayd in le'eg ayay kortaa. ilaa 18 sano oo ka soo gaaro koritaanku way wadaysaa. riyooyinka waxaa la rumaysan yahay inay yihiin isku dhaaf malaawaala, arrimo jir ahaaneed iyo qodobo neerfayaasha la xiriira. waa astaan muujinaysa in maskaxdu ay u shaqaynayso si ka badan markii aad soo jeedo. waxayna ka turjumaysaa xitaa markii aad hurdayso in maskaxdaadu ay shaqaynayso. maskaxdu waa xubinta ugu dhuuxa badan jirka aadamaha. 60% waa dhuux. maskaxdu marnaba xanuun ma dareento gudaheeda. inta la og yahay sida xubnaha kale u dareemaan xanuun iyadu uma dareento. meesha waxaa imaanaya su'aal ah, waa maxay madax xanuun mise maxaa keena madax xanuunka? madax xanuun waa xanuun ay dareemaan murqaha iyo neerfayaasha madaxa ku jira. taasi waa sababta markii la sameynayo qaliinka maskaxda loo fuliyo asigoo qofka soo jeedo. markastoo aad weynaato maskaxdaadu way sii yaraanaysaa. sidoo kale waxaa la xusaa qofka marka uu soo gaaro da'da 20-yada inuu bilaabayo luminta keedka xasuusihiisa. oksijiinta iyo dhiigga jirka isticmaalo 20% waxaa qaata maskaxda. waa xubinta ugu muhiimsan jirka bini'aadanka. sidoo kale waxaa la xusaa in gudaheeda xididaha dhiigga ee dhex mara dhirirkooda guud uu gaaraya 100,000 oo meel. guud ahaan masaafada dhulka ee labada cirif ee dhulbaraha taga waa 24,000 oo meel. 4 jeer ayay xididihiisa ka dheer yihiin dhulka. celcelis ahaan 70,000 oo fikradood ayuu qofka samayn karaa maalinkii oo ay soo saartaa maskaxdu. cilmi baaristu waxay intaasi ku darayaan in maskaxdu raggu ay 10% ka weyn tahay tan haweenku. sidoo kale waxay muujinayaan maskaxda dumarku inay ka dareemo badan tahay tan raggu, taasoo sahlayso in si dhaqso ah shaqada u qabato. markii aynu aragno sawiro, waxay indhaheenu qabtaan sawiradii oo gedisan. durbadiiba maskaxda ayaa toosisaa oo sawiro caadi ka dhigta. qofka marka uu hurdada ka soo kaco maskaxdiisu waxay leedahay awood ay dab ku siiso ama ku shido laambadda ilayska. cuntooyinka badan ayaa ah kuwa ugu wanaagsan ee faa'iido u leh maskaxda. aysida iyo dhuuxa ku jira ayaa ka saacida maskaxda inay si wacan u shaqeeyaan xasuuso badan oo soo celiso. halka qamrigu uu yahay cadowga ugu weyn ee maskaxda dareemayaasha kala fura oo dhaawaca. haddii dhiigga maskaxda aada uu hal mar istaago, muddo 10 ilbiriqsi ka yar ayuu qofka ku miir daboolmayaa. sidoo kale qofka marka uu dhinto maskaxdiisu muddo 5 ilaa 6 daqiiqo ayay sii jiri kartaa. sida ay saynis yahanadu qabaan, maskaxda bini'aadanka waxay keedin kartaa ama hayn kartaa macluumaad u dhigma 4.7 milyan oo buug. Finland ayaa dalka dadkiisu celcelis ahaan ugu sareeya bulshooyinka wax akhriya. Soomaalidu akhrisku ma jeclo oo waa uu ku yar yahay. akhrinta buugaagta qofku waxay u leedahay faa'iidooyin qofnimo iyo caafimaad labadaba. waxay ka saacidaysaa qofka in maskaxdiisu ay noqoto mid isku xiran oo ka gaashaaman xanuunada. waxaa kaloo akhriska laga faa'iidaa in eray bixinta qofku ay aad u kordhayso. waxa uu yareeyaa buuqa iyo cadaadiska dhiigga iyo wadna garaaca. faa'iidooyinka akhriska waxaa kaloo ka mid ah in heerka aqooneed ee guud uu kordhayo. inaad noqoto qof ka sareeya tayadiisa wax qoridda. inaad noqoto qof u damqada dadka kale oo naxariis badan. wuxuu ka caawiyaa akhrisku inaad hurdo fiican hesho iyo inaad niyad-jab ka fogaato.
sidoo kale wuxuu akhriska ka hor istaagaa hoos u dhaca ku yimaada garashada markii aad gabowdo. Waxaa kaloo faa'iidada akhriska ka mid ah in kuwa wax akhriya ay ka cimri dheer yihiin kuwa aan wax akhrinin. Waxaa la tilmaamaa in 20 buugood oo akhriso maalintii ay wax badan noloshaada ka beddelayso, caafimaad ahaan, aqoon iyo garasho ahaanba.